munaasabada lagu maamuusay maalinta xornimada Soomaaliya ee kowda Luulyo ee imika ka soo wareegtay 51 sano ayaa si weyn waxa looga xusay magaalada Haarlem ee wadanka Holland iyadoo xafladaasi qabanqaabadeedana ay iska lahaayeen jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Haarlem taasoo garabsanaysa dalada Soomaalida ee wadanka Holland ee Efsan. xafladan ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee wadanka Holland ayaa qaar kamid ah madaxda magaalada Haarlem iyo ururada u dooda xuquuqda dadka qaxootiga ku ah wadankan Holland waxaana dhammaan dadkii halkaas ka soo qayb galay si wada jir ay u muujiyeen maalintan qiimaha ay ugu fadhida dadka Soomaaliyeed oo ah maalinta ay xornimada qaateen gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya iyo xitaa midowgii gobolada koonfur iyo waqooyi. fanaaniinta reer Holland oo iyaguna si weyn ay uga dhex muuqatay fanaanada Laki Xaaji Wacays ayaa iyaguna halkaas ku soo bandhigay heeso loogu talagalay maalinta xornimada Soomaaliya. waxaa mahad eebe ah inaan dabaaldeg weyna caawa sanad guuradii 51aad ee xorriyadda dalkeena Soomaaliya taas oo inaga mudan dhamaanteen inaan si weyn u xurmeyno una xasuusano isla markaana u xusno in ay maanta tahay maalin qaali ah maalin aan iloobi karin meel kastaba aan joogno haddii aan Soomaali nahay. dadka Soomaaliyeed qayb weyn ayay ka soo qaateen xornimadan maanta aan haysano calankan buluglow waxa ay sameeyeen waxay ahayd waayadii hore markii maaragtay ay dagaalamayaan lacag bay iska aruuri jireen dahabkooday gadi jireen markii dad la xiro dadkaas reerka laga xiro ayaga masruufi jiray waxay kala sameyn jireen in macnaha maxaa ahaayay arrin Ilaahay siiyo oo awood ayaa jirta oo lagu magacaabo buraanburkaas ayay ragga ku gowaabi jireen. waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed dhamaantood runtii inaan salaamo runtii maanta waa maalin weyn shacabkana waxaan rabaa runtii maanta kale inay noqoto maalin lagu farxo inkastoo runtii maanta dhibaato waddankeena ka jirto haddana waxaa fiican dadku inay runtii aanay ilaawin maanta kale inay tahay maalin la ilaawi karin. magacayga waxa la yiraahdaa Abshir Haarun dareenkayguna aad buu u sareeyaa anoo aad ugu faraxsan kowda Luulyo inaanu halkan ku ciidno dadweynaha Soomaaliyeed oo inta tiro leeyo meesha isugu yimid ay tahay farxad aad u weyn anoo run ahaantii dhinac ka murugaysan oo waddankayga dhibaatada ka jirto ka murugaysan haddana aad baan ugu faraxsanahay dadweynaha maanta meesha isugu yimid. waxaan ognahay Soomaali badan inaysan xusi karin meesha aan joognay aan isku dayeynaa inta awoodayda inaan sameeyno maaragtay Soomaalida inaan isu keenno Soomaalida inaan dareensiino inay farxaan Soomaalida inaan u sheegno inuu jiri jiray waddan Soomaaliya la yiraahdo oo kowda Luulyo ay aad maalin maaragtay waddanka Soomaaliya laba calan oo laba Soomaali ay kala wadato la isu keenay. xafladda walaahi waxay u dhacday si fiican way isku dhacaysaa dad badan baa yimid Soomaali in ka badan aan u maleynaynay oo magaalada degan in ka badan baa timid way fiican tahay laakiin waxaan ka murugeysanahay waddankeena in saas loogu dabaaldegi karin. waxaan arkay runtii dad Soomaaliya oo aad iyo aad u fara badan oo qurux badan oo si fiican u libisan oo calankii ka dhex muuqdo oo isugu jira dumar iyo rag iyo dhalinyaro iyo waayeel iyo caruur iyo ciroole oo runtii aad u faraxsan xusaayana maalinta qiimaha ku leh mujtamaca Soomaalida. dareenkayga haddii aan cabiro waa mid farxadeed oo aan ku soo dhaweynayo maalinta kowda Luulyo ah markii Soomaaliya ay ka xorowday gumaystaha oo hadda laga joogo 51 sano. sanadkan Soomaalida Holland waxay u ahayd mid xasuus gaar ah u yeelan doonta marka loo fiiriyo sida ay Soomaalida wadanka ku nool ay xuseen maalinta qarannimada Soomaaliya ku weynay kowda Luulyo. Cabdiwali Ibrahim Garyare Universal TV magaalada Haarlem.